taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 6aad ayaa diiwaangelisay ciidan ka mid noqonaya ciidanka militariga kuwaasoo diiwaangelinta kadib loo dhaariyay in ay daacad u noqonayaan awaamirta u degsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magaca Ilaahay in aan daacad u noqdo dalka dadka diinta in aan u hogaansamo dhammaan xeerarka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xeerarka kale ee dalka u degsan in aan fuliyo amarada madaxda si kalsooni ku jirto in aan heegan gaashaan u noqdo hase yeeshee intaa kadib ayaa taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka militariga General Ibrahim Yarow saxaafadda u faahfaahiyay waxyaabihii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay ciidanka militariga Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 6aad ciidamadan diiwaangelinta lagu samaynayo oo maanta aragteen oo la qorayo dana la dhaarinayo waa amar ka soo baxay dawladda annagoo fulinayna marka amarkaas taliska sare ee ciidamada oo na siiyay ayaan hadda fulintiisii ku jirnaa oo maanta aan bilownay xuquuqdooduna dawladdu waayihii u dambeeyay bilihii dambe oo dhan waa la bixinayay mushaaradooda raashinkooda dawladdu si toos ah ayaan uga helaynay bishii Oktoobar bishii December mushaarkeedii waa yaallaa shalay aniga xamar ka imid mushaarkii waa yaallaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo bishii subaxdii ayaa la bilaabayaa oo ciidamada la gaarsiinayaa dib u dhiska ciidanka ayaa hadda la amray oo dawladdu ay amartay taliska sare ee ciidamada dib u dhiskii ayaan bilownay annagana hawshaasaan ku dhex jirnaa alaa askari kasta waa dhaaranaya anigoo taliyaha qaybta ugu sarreeya dhaartaan maraya cid aan dhaartaas marinna ciidankan ka mid ma ahaanayso ciddii diidda waa bixaysa waa la xirayaa weliba maxkamadda joogta la saaraya shakhsi kasta waa inuu dhaartaa haddana dhaartii waa socotaa shakhsi kastoo la diiwaangelina waa la dhaarinayaa diiwaangelinta ciidankan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo saacadaha soo socda la filayo in ciidankan la siiyo gunooyinkii ay xaqa u lahaayeen Abshir Maxamed Nuur Royal TV